Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada chapter 2 course-keeni imtixaana ahaa ee English Vocabulary in Use chapterkiisii labaad ayaan fiirin doonaa. Today waxaan ka baran doonaa vocabulary la xiriira ama erey la xiriira birth, marriage and death. Dhalashada, guurka, dhimashada, dhammaan erey la xiriira. Marka waxaan ku hormari doonaa birth. Bal hal mar ila dhegeysta eradan haddii ay macquul tahane waa ka daba dhihi kartaan kadibna mid ayaan u fiirin doonaa insha Allah. A. Birth. Anna had a baby yesterday. He was born at 1:15 yesterday morning. He weighed 3 kilograms. They are going to call him John, after John, his grandfather. His grandfather's birthday is June the 16th too, but he was born in 1957. The baby's parents were born in 1986. All right. Marka aan isla fiirino. Anna had a baby yesterday. Anna shalay ayay cunug dhashay. Ereygaas very useful way. Waa socon kartaa. My sister had a baby yesterday. Hadii kartaa walaashay shalay cunug ayay dhashay. Xaaskayga shalay ayay cunug dhashay. For example, my wife had a baby yesterday. Marka adiga waa bedelin kartaa. He was born at 1:15 yesterday morning. Wuxuuna dhashay 1:15, like 7:15. He weighed 3 kilograms. Culeyskiisana markuu dhalinayo wuxuu ahaa 3 kilograms, 3 kg ayuu ahaa. They are going to call him John. Waxayna rabaan inay ugu macdaraan ee u bixiyaan John. After John, his grandfather. Waxaana loogu macdar rabaa awowgiis la dhihi jiray John. His grandfather's birthday is June 16th too. Mid kale ee ka sameeyna waxay noqotay labadoodaba waa same birthday. Waxay wada dhasheen 16th of June. But he was born in 1957. Laakiin awowgiis wuxuu dhashay 1957. Exclamation mark calaamad la yaab la raasiyo markaas. The baby's parents were born in 1986. The baby's parents, babyga dhashay waalidiintiisa oo laga wado the father and the mother, parents ala isku dhahaa, waxay dhasheen ayagana 1986 ay dhasheen 1986. sanadaha marka la akhrinayo badanaa waxaa la iskugu qabtaa labo. had sanadka hadaa fiirisaan waxaa dhehaysaa labada hore isku qabo 19, labada dambena isku qabo 86. sanadka hore muxuu ahaa kii hore 1957. tusaalahan sanadka haddaan ku jirna muxuu noqonayaa 2024. simple dadka waxaa fiican dhahaan laba iskugu qabo 2024 qaab noocaas oo kale ah. Common mistakes aan isla fiirin doonaa markii meeshan la joogo maxaa ka mid ah khaladaadka ay sameeyaan karaan. Anna had a baby. Saasan ku soo aragnay casharka qaybta hore. Anna had a baby. Ma dhihi kartid Anna got a baby. Lama ogolo. Okay, he was born, she was born. Saasa dhehaysaa. Ma dhihi kartid she born ama he born. Lama ogolo. ama she is born lama ogolo. Grammatically sax maahan. Marka maadaama ka sheekeynaysa wax mar hore dhashay waxaa dhehaysaa he was born. hadduu wiil yahay waxaa dhehaysaa my father was born. You see, waxaa dhehaysaa my children were born. fahamsida? Marka ereygaas was markuu hal yahay waana dhihi kartaa he was born. haddii badan yihiinna they were born. Marka mistakes dadka badan ay galaan waaye.
I born ma dhihi kartid waa inaad dhihi kartaa I was born. Section B aan isla fiirino ereyada la xiriira marriage-ka waxa la xiriira ninkan weli ma guursan wuu guursaday waa la soo furay waa laga dhintay waxyaaba noocaas kale aan fiirin doonaa bal hamar isla dhegeysano marka hore. B. Marriage. If you do not have a partner, you are single. If you have a husband or wife, you are married. If your husband or wife dies, you are widowed. If your marriage breaks up, you are separated or divorced. Harry and Sarah got married. They got married in 2001. They went on their honeymoon to Italy. They were married for 15 years. Alright. Markasta xoog waxaan saari doonaa sidaan hore usoo sheegnay ereyada oo ku qoran farta burburan ee loo yaqaano bold ereyada loo yaqaano. Okay, if you don't have a partner, you are single. Qofka haduusan weli guursanin uu keli u yahay qofkaas wuxuu noqonayaa single. I am single. Haddaad micnaheed tahay I don't have a partner. Ma haysti waa qof nolosha aan la wadaago oon guursaday weli ma helin waa. If you have a husband or wife, you are married. Opposite kiisa waaye. Haddii nin aad tahay haddii aad haystid xaas gabar that means you are married. Aksi gabadha haddii nin ay haysato that means she is married. Waxay kasoo horjeedaan kii hore oo ah single. If your husband or wife dies, you are widowed. Haddii ninkaaga ama naagtaada ay kaa dhimato markaasoo kale ma noqonaysid single ma lagu dhahayo markaasoo kale waxaa noqonaysaa widowed waa laga dhintay qofkaas like ninkan naagtiisa ka dhimatay so single lama dhahano ama naagtaani ninkeeda ay ka dhintay that means she is widowed anayna markaas. If your marriage breaks up, you are separated or divorced. Let's say waa guursatay laakiin guurkiinii ayaa soo dhamaaday waa la kala tegay so markaasoo kale waxaan dhahaynaa separated waa kala teganay waayo ama divorced annaga agteen waxaan naqaanaa divorced wadamada qaar laga yaabaa in laga yaqaano separated like qofkaani gabadhaani way soo guursatay waa la soo furay so she is divorced. Ninkaani sidoo kale hadda kor wuu guursaday single ma ahan laakiin way kala tageen xaaskiisii wuxuu noqonayaa markaas divorced. Haddii ay ka dhiman lahaydne waxaan dhahnay ama naagta ninkeeda ka dhiman lahaane widowed. So the marriage has legally ended. Like maxkamada la tagay waa la soo kala tagay warqada kala qortay oo in la isfuray. Harry and Sarah got married. Laba qof ayaa rabtaa inaad dhihi kartid way isguursadeen see u dhehaysaa like Ali and Aisha got married way isguursadeen aad dhihi kartaa. They got married in 2001. got hadaarta waa ka boodi kartaa micneeda they married in 2001 aad dhihi kartaa. It means married without got is more formal. Marka ereygan married waa isticmaali kartaa adigoon got isticmaalin. That's more formal. Professional kaasa si fiican isticmaali kartaa. They went on their honeymoon to Italy. Bishooda ugu horeysay waxay aadeen Italy ayay ku aadeen. Ereygaas muhiim waa marka inaad fahantaan honeymoon dadka markay isku cusub yihiin ay isguursadaan bishooda ugu horeeyo shahrul asal allah honeymoon marka bishooda ugu horeysay waxay aadeen to Italy ay aadeen. They were married for 15 years waxayna isguursadeen 15 sano ka hor ay isguursadeen. The wedding marka nikaaha iyo guurka marka la joogo magacyada ay kala qaataan. Gabadha caruusada ah ee la guursaday waxa loo yaqaanaa bride caruusada cariiska ninka ah ee guursanaya asayna wuxuu noqon doonaa bridegroom ayuu noqon doonaa markaas. Okay, common mistakes ayuu markaas noo raacsin doonaa khaladaad iska badanaa laga yaabo inay galaan maxaa ka mid ah. Sarah got married to Harry. Sasa dhehaysaa like qof aad rabtana dhihi kartid hebel ama heblaayo waxay guursatay hebel. Sarah got married to Harry
marka prepositionkaas ayaa macna sameynaya not with Harry lama ogolo. Let's say Aisha ayaa waxay guursatay Ahmed, waxaa dhahaysaa Aisha got married to Ahmed adhaysaa. Fahamsada? Marka with lama ogolo, khalada ka imaanaya markaas. Okay, section C ayaan isla fiirin doonaa oo ku saabsan death, like qofaa dhintay, qofaa xagga lagu soo duugay, see loo dhihi doonaa markaas. Bal marka hore aan isla fiirino aan dhegeysano. C. Death. Then Harry became ill. He died last year. He died of a heart attack. Okay, sheekada ka sheekeynaa marka maadaama aan kasoo sheekeynay wuu dhashay, then wuu guursaday, then Harry became ill. Harry wuu xanuunsaday, become ill ayuu noqday, wuu xanuunsaday. He died last year. Wuxuuna dhintay, uu geeriyooday last year. Sanadkii hore ayuu geeriyooday. He died of a heart attack. Wadna xanuun ayuuna u dhintay. Wadna xanuun ayuu u dhintay. Heart attack. He died of. For example, haddii walaalkaa u dhinto waxaad dhahaysaa my brother died last year. Fahamsada? Common mistakes. Khaladka badan ay galaan waxaa ka mid ah Harry is dead. Ma dhehaysid Harry is died, ma dhehaysid. Maadaama uu dhintay waxaan ka dhigaynaa wax oo presence-ka ah. Harry is dead. Not Harry is died or Harry is death. Lama ogolo. Meesha dadka lagu duugo oo isugu yimaadaan waxaa loo yaqaanaa funeral. Waa qabuuraha waa. The funeral will be held on tomorrow camal. Berita ayay dhici doontaa duugta camal exactly. Funeral waa duugta iyo xabaalaha meesha wax lagu duugi doono markaas. Okay, that's the end of chapter 2 ama unit 2 na meesha aan kusoo gabagabayn doonaa. Si chapterkan in aad fahantay u cadeysid waxaa u baahan tahay in aad ka shaqaysid exercise-ka ay ka shaqayn doontaa. Exercise-kana markasta wuxuu weydiin doonaa wixii aad kusoo baratay isla chapterkan, erayadan oo ku qoran dhammaan farta booldig ah, farta burburan ayaa la rabaa in mid mid aad u fahantay. See you inshallah. Waxaan inoo baran inshallah chapterka xiga iyo adinkoo diyaar inshallah. Nabadgelyo inshallah.